قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka galcad miidiya qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ugu dooro al-shabaab oo laayay ciidankii madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle sargaalkii haystay madaxtooyada hiirshabeelle oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay duleedka jowhar kenya oo wafuud u diraysa caleemasaarka axmed madoobe abshir bukhaari iyo xildhibaano badan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo kismaayo u gaaray ka qaybgalka caleemasaarka axmed madoobe taraam oo ilhaan cumar ku qaaday weerar afka dowladda maraykanka oo soomaaliya ugu deeqday lacag malaayiin ah markab saliida qaada oo ay leedahay iiraan oo lagu qarxiyey dalka sacuudiga iyo nin toorey ku hubeysnaa oo dad badan ku dilay magaalada manchester xaggaga haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday sabskaraable janalkan si aad u hesho wax kastoo aan janalkan soo gelinno taariikhdu waxay tahay 12 bisha 10 oktoobar 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhowaada saaxiibay قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز wararka ka imaanaya deegaanka daymasame ee duleedka bari ee magaalada jowhar ee caasimada maamulka hiirshabeelle ayaa sheegayay in dagaal aad u xoogan oo ku dhex maray deegaanka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa hiirshabeelle oo iskaashanaya ee dagaalamayaasha al-shabaab dagaalku ahaa mid qaatay saacado ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay oo hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsaday isku horimaadkan ayaa yimid kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay diideen in la xiro webiga shabeelle oo ka fatahay deegaanka daymasame wararka qaar ayaa sheegayay in si-ula kaca ay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay u fatahiyeen webiga shabeelle gaar ahaan buqda daymasame si ay u go'do wadada xiriirisa balcad iyo jowhar taa oo mar hore maristeeda ay ka quusteen ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiinta maamulkaasi inta loogu yahay dagaalka waxaa ku geeriyootay ku dhowaad 10 askari oo ah dhinacyadii dagaalamay dadka ku geeriyooday dagaalka waxaa ku jira sargaal sare oo ka mid ah ciidamada madaxtooyada hiirshabeelle gaar ahaan ilaalada madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ciidamada dowladda ayaa dib deegaanka iskaga soo noqday markii la dilay taliyihii hogaaminayay deegaanka daymasame oo hadda shabaab ay gacanta ku hayaan ayaa xaaladiisa tahay mid kacsan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa fadhiisimo ku leh deegaano ku yaala hareeraha webiga shabeelle gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka jowhar iyo balcad ee gobolka shabeellada dhexe kenya ayaa wafuud culus u diraysa caleemasaarka axmed madoobe kenya ayaa ku dhowaad 40 wafuud ah u diraysa magaalada kismaayo si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam sida uu BBC-da u xaqiijiyey hogaamiyaha aqlabiyadda kenya aadan barre ducaale ayaa yidhi wafdi aan ka mid ahay oo gaaraya 40 meeyo ayaa dowladda Kenya waxay u tiraysaa caleemasaarka Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland waxay arintan iimaanaysaa xilli dowladda Kenya ay hore u aqoonsatay doorashadii lagu doortay Axmed Maxamed Islaam halka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku tilmaantay mid sharci darro ah maalmo ka hor kismaayo waxaa gaaray madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed xilli la filayay inay qabsanto xafladda caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dib loogu doortay doorashadii madaxweynaha Jubbaland ee dhawaan dhacday inkastoo uu muran badan hareeyay siyaasiyiinta kale ee kismaayo gaaray waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha ku-xigeenka aqalka sare Abshir Bukhaari madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole madaxweynayaashii hore Galmudug iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo tiradeeda gaaraysa 80 xildhibaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota weerar culus oo xagga afkaha ku qaaday Ilhaan Cabdulaahi Cumar oo ah wakiilka aqalka Koongareeska ee gobolkaas laga soo doortay Trump uu muuqday inuu markan Ilhaan ku bartilmaameedsaday gobolka hooyga u ah gudihiisa ayaa hadalkiisa ka sii waday dhaliilaha u jeedinayay siyaasiyadda ka soo jeeda Soomaaliya
wuxuu dadka reer Minnesota ku canaantay sababta ay weli raali uga yihiin inay Congress-ka ku matashay Ilhaan Cabdulaahi Cumar oo ah gabar ka soo jeeda Soomaaliya kana tirsan Congress-ka Mareykanka. haweeneyda Congress-ka ka tirsan ee la yiraahdo Ilhaan Cumar waa qof nacab Mareykanka waxay iska inatirtay weerarkii September 11 lagu soo qaaday wadankeena sidee ku ogolaatay in qof noocaas ah oo idinku matalo Minnesota. aniga aad baan idinkaga cariisanahay dadkiina hadda ayuu yiri Trump. hadalka Trump ayaa ka qayb noqonaya dagaalkii qaraara isaga Ilhaan u dhaxeeyay tan iyo markii uu xilka madaxweynaha qabtayba. horay wuxuu Ilhaan iyo Trump warbaahinta iyo baraha bulshada isku mariyeen eedeemo iska soo horjeeda wuxuuna midka kale ku eedeynaya inuu cadow ku yahay shacabka Mareykanka. xilligii uu madaxweyne Trump ku jiray ololaha doorashada waxa aad loo xasuustaa hadal uu ka yiri Soomaalida ku nool Mareykanka oo ahaa in falan argagixiso ay ku soo kordhiyeen Minnesota oo haddii loo doorto ku hortagi doono qolqolka qaxootiga iyo muhaajiriinta Soomaalida. waxa kale oo aad loo xasuustaa hadal caan baxay oo ay tiri Ilhaan Cabdulaahi Cumar oo ahaa in dadka Minnesota aysan soo dhaweynin qaxootiga oo kaliya balse sidoo kale ay u diraan Washington oo ay ula jeeday doorashadii maadaama ay qaxooti ahaan dalka ku soo gashay. wafdi uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Buqaari ayaa ku biiray siyaasiyiintii iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Kismaayo u gaaray caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. doorashadii uu ku soo baxana ay diiday dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Abshir Buqaari ayaa wafdigiisa waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga Ilays ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdulqaadir Cusuble xildhibaan Mahad Salaad iyo xubno badan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. xubnahan ayaa Kismaayo waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin oo ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland wasiiro xildhibaano iyo dadyo kale oo shacab ah. Kismaayo dhawaan ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. dowladda ayaana ka qayb gali doonin caleemasaarka Axmed Madoobe. dowladda Mareykanka ayaa shaacisay inay lacag malaayiin ah ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in lacag gaaraysa 50 milyan ay ugu deeqday barnaamijka baro ay soo hindistay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. barnaamijkan ayaa xukuumadda Soomaaliya kor hore sheegtay in markii ay ku dhawaaqaysay inay gol leedahay tayeenta iyo sare u qaadida waxbarashada Soomaaliya. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa shaaciyay sidan markaba ay Iiraan leedahay ayaa lagu weeraray meel ku dhow xeebaha dalka Sacuudiga. laba gantaal ayaa lagu weeraray markab saliidda qaada oo ay leedahay dalka Iiraan xilli uu ku safriyay badda cas meel u dhow Sacuudi Carabiya sida ay ku warameen saraakiil Iiraaniyiin ah. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Sacuudi Carabiya oo ku saabsan qaraxa lagu waramay. telefishinka dowladda Iiraan ayaa sheegay in qaraxa uu waxyeeleeyay laba ka mid ah qolalka wax lagu keediyay ee markabkan oo aan magaciisa la sheegin isla markaana uu sababay in saliidda ku daadata badda cas. warbaahinta Iiraan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay meel u dhow xeebta magaalada Jidda ee badda cas. afhayeenka markabka shanaad ee ciidamada badda Mareykanka ee qaabilsan bariga dhexe ayaa sheegay in ay ka warhayaan warbixino ku saabsan dhacdadan balse waxa uu diiday inuu bixiyo faahfaahin intaasi dheer. qaraxan ayaa imaanaya kadib markii Mareykanka ay bilihii tagay Iiraan ku eedeeyeen inay markab saliidda qaada ku weerareen meel ku dhow marinka Hormuz eedeymahaasi oo Iiraan ay beenisay. qaraxa cusub ayaa sare u sii qaadi doona xiisadda ka dhex oogan Iiraan iyo Mareykanka sanad kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu go'aan uu kaligiis qaatay uga baxay heshiiska nukleerka Iiraan dibna u soo rogay cunaqabateenadii laga qaaday Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. ninku hubaysan Toure ayaa 4 ruux oo shacab ah ku dhaawacay bartamaha magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska. sida laga soo xigtay goobjoogayaal ninka weerarka geystay ayaa Toureeda kula dhex orday dad badan oo goobta weerarku ka dhacay ka agdhawaa. booliska ayaana sheegay in gacanta lagu dhigay ninkii weerarka geystay oo ahaan lagu qiyaasay inuu jiro da'da 40. taliska booliska magaalada Manchester ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa haatan aysan ogeyn waxyaabaha ku dhiirigeliyay weerarka ninkan. ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa bartiisa Twitter ku soo qoray inuu aad uga naxay weerarka ka dhacay magaalada Manchester isagoona taageero u muujiyay dadka ku dhaawacmay weerarka. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino
galcad media galcad media news galcad media news galcad media news